waa qaybta afaraad qisadii la magac baxday caashiqii hooyan waayey hormuud baa u soo dhacay. axmed caradii uu liibaan ka qaaday wuxuu ku sigtay inuu xilli saq dhexe ah guriga ka tago, laakiin wuxuu naftiisa ku sasabay inuu kari karo inuu xaqiisa soo dhacsado oo uu si xeeladaysan wax ku raadiyo, ilaan wuxuu ka baqayaa in la dhaho walaalkiis ayuu gabar darteed kula dagaalamay. liibaan dhankiisa wuxuu damcaa inuu fariin salaan ah u qoro hani, balse intuusan qoraalka bilaabin si lama filaan ah wuxuu inboxiska taleefankiisa ku arkay fariin magaca hani wadata, si dhaqso leh ayuuna u furay. axmed isna kor ayuu ka daawanayay, wuxuu islahaa goormuu ku weydiin doonaa fariintan aad akhrisatay. liibaanse maskaxdiisu ma joogin, dareen ayaa la tegay. wuxuu bilaabay inuu la fajaco fariintan laga soo shaqeeyey ee soo jiidashada leh, farxad darteed ayuuna waali ku sigtay. liibaan suugaanta kuma fiicna, balse wuxuu is yidhi bal gabadha laba eray ugu jawaab. wuxuuna u qoray: qumankaa ma liito, dareen baa i qaaday, qoor sagaaro igu dhigay, khushuuc baan dareemay, qaybaha wadnahana qolal baad ka dhisatay, ku qaabilay xabiibti qalbigaaga taageli. intaas markuu qoro welibana asagoo ku rafaada ereyada ayaa axmed oo raba inuu ogaado halka xaaladda liibaan marayso ku dhahay: nin yahow waan yaro dhaxmoonayaaye orod busta ii soo raadi. haye isug ayuu dhahay liibaan oo taleefankii sariirta uga tegay. axmed intaas jaanis ayuu ka dhigtay. taleefanka markuu kala furay oo uu jawaabta liibaan akhriyeyna dhiiggiisa ayaa boqolka tegay. hadba siduu nafta u koontaroolayay waxaa ku soo dhacday fikrad ah bal inuu gabadha taleefankeeda qorto oo uu asaga raadsado. wuxuu maqlay axmed shanqarta liibaan oo qolka soo geli raba. waxaa mar qura ka soo daatay dhibco waaweyn oo dhidid ah. liibaan wuxuu u keenay bustihii, balse wax ka yaabiyey ayuu haddana arkay. nin yahow qabowgan jira miyaad dhididaysaa, ma caafimaad qabtaa ayuu weydiiyey axmed. haa saaxiibow, laakiin arrintii gabadha ayaan soo xasuustay. waad og tahay weligay waxba ma shukaansane ayuu dhahay isagoo raba inaan carada laga garan. liibaan oo qoslaya ayaa yidhi: saaxiib isdeji, habka loola haasaawo dumarka anigaa jaamacad uga soo baxay. naqshadda markaan kuu dejiyo adigaa arki doono adigoo lagaa daba yaacayo. meesha axmed uu ka fikirayo iyo liibaan qorshaha uu wato waa harka labadiisa gelin. nin walbaa debin baa u aasan, nin walbaa dan buu leeyahay. habeenkaasna sidaa baa lagu kala seexday. hani ayadana waa iska warmoog. waxay la nooshahay gabar walaasheed ah oo lagu magacaabo faadumo oo kenya wax badan joogtay, aadna u kala taqaano guruubyada ay u qaybsamaan dhallinyarada xaafadda islii ee dadka dhiba welibana dhaca. abbaayo faadumo waxay maalmahan hani ku aragtay isbeddel iyo farxad aan la qiyaasi karayn. iyadoo rabta inay war ka soo saarto ayay weydiisay: haniyey abbaayo, beryihii hore waddankan markaad ku cusbeed caajis baa kaa muuqday, maalmahan faxfax ayaa tahaye maxaa soo kordhay? hani ayadoo xishood ka muuqda ayay ku warcelisay: abbaayo wax saasa ma jiraane, waxaad mooddaa hawshii aan halkan u imaaday inaan ka maarmay oo aan helay howl kaloo ka faa'iido badan. faadumo ma aysan fahmin jawaabtaas la siiyey, laakiinse maadaama ay waaye arag tahay waxay dareentay in gabadha uu jacayl galay. waxayna dhahday: saaxiibay, howlahan camal waan ku soo jabaye wiilka aad baratay maad axwaashiisa iga dabagaysid. hani markay aragtay in la fahmay ayay uga sheekaysay siday wax u dhaceen, ileen walaasheed ka weyn waxba kama qarin kartee. xoogaa markii la falanqeeyey arrinka, faadumana ay aragtay in hani qalbigeeda la xaday, ayay ka codsatay in wiilkaas sawirkiisa ay tusto. hani sawir uu liibaan facebooka ama messengerka uga soo diray ayay soo saartay. waa kanaa gacaliyahayga iska baro ayay dhahday ayadoo isqalqalloocinaysa. faadumo markay aragtay sawirka liibaan waxay u muuqatay qof wadkiisii arkay camal. way istaagneede hal mar ayay si degdega u fadhiisatay. naayaa kaalay, makanaa sow liibaan lama dhaho ayay weydiisay. la soco qaybaha kale. qaybtaanse maxaa kaaga baxay?
hadduu jiro qof asxaabtaada ka mid ah oo aad jeceshahay inuu qisadan la socdo, mention dheh oo halkan uga wac, siina sheer gareeya.